عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan idil ahaantiin badda wadayaal meel kasto daafaha caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni sirta nolosha barnaamijkeena waxaaynu ku soo qaadan doonaa waxyaabaha qofka bini'aadanka ahi uu ku gaari karo horumar isla markaasina noloshiisa wax fara badan ka bedeli kara oo markaasi uu ku gaari karo yoolka uu ka hiigsanayo dunida iyo weliba hadafkiisa nololeed waxyaabo fara badan ayay dadku yidhaahdaan waxa lagu gaaraa hadafyada aad leedahay waxay ku rumaynayaan riyooyinkaaga laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa 3 waxyaabood oo aad ku gaari karto hadafyadaada dhanka nolosha ah arrinta ugu horeysa waxa ay tahay waa in aad noqotaa qof run badan runtu qofka waxa ay ka caawisaa in uu noqdo maxaan kugu dhahdaa qof cid waliba aamini karto qof waliba uu markaasi uu wax ku aamini karo waxa uuna qofkaasi noqdaa qofka uu ka run badan yahay qofka loogu jecel yahay dunida qofka runta badan cid kastaaba way jeceshahay qof kastaabana wuu soo dhaweeyaa waliba runtu waxa ay waliba ka mid tahay waxyaabaha lagu gaaro darajooyinka sare ee aakhiro iyo adduunkaba qofka bini'aadanka gaarsiisa horumar adduunka gaarsiisa aakhirana jannooyinka ilaahay gaarsiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam runta waxa uu inoogu sheegay in runtu ay qofka jannada ay gaarsiiso oo ay ka mid tahay wanaagga beentuna waxa ay ka mid tahay waxyaabo